عاوة وأوحي السنة عد كيغي صوبها عاوة وحان السنة ميت وقت أي حالة وهذاك تاني لقينا والولسية هاي مستقبل دلكا يدلتك صوماليات أنا سدقي سنة وما تنتين تاغيرا أنا سدقي سنة لكن marka aan ka hadlayno muhiimadda qabashada doorasho ku dhacda si la wada ogol yahay ma ahan ama kama dhigna inaan ka fikirno 40 maalmood ee soo socota waa inaan ka fikirnaa 4 sano iyo 40 sano ee soo socda sababtoo ah qaabka aan u maarayno iyo sida ay wax u dhacaan 40 maalmood oo soo socda ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta mustaqbalka 40 sano oo ummadda Soomaaliyeed ku soo foolay sida ay taariikhdu nabarayso marka aad aragto dal walba oo soo kabanaya sidii dalkeena oo kale marka uu hor taagan yahay go'aan masiiri ah oo doorasho horumarkiisu waxa uu ka dhashaa sida doorashadaas loo maareeyo dib u dhaciisuna wuxuu ka dhashaa sida doorashadaas loo musuqmaasuqo mana aha fikir aniga iyo musharaxiinta kaligeen aan qabno laakiin waa cilmi ay nabarayso taariikhda iyo dalalka soo maray dhibaatooyinkaas sidii aan horay u sheegay markii aan xukunka joogay oo aan ra'iisul wasaaraha ahaa waxaan idhi haddii aanay Soomaalidu ku heshiin nidaamka doorashada madaxtinimada dalka ka hor inta aysan doorashadu dhicin kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadaagga dawladnimada dalka haddii marka la isku dayo ama ay dhacdo doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaan hubaa inay ka dhalan doonaan dhibaatooyin badan caawa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waxa ka halaabaya haddii dalkan doorasho loo dhan yahay aan laga qaban waxaan rabaa caawa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego markaan ra'iisul wasaare ahaa meeshii aan ka digayay halkaan ay ahayd meeshii aan ka digayay oo aan xukunka uga soo tagay halkaan ay ahayd waxaan rabaa marka inaad si fiican u dhagaysataan waxa aan qarka u saarannahay inay naga halaabaan kow haddii la qabto doorasho aan wadan ogol ku dhicin waxaa ka dhalan doonta dalka dawlad aan la isla ogolayn dawlad aan la isla ogolayna waxay dhalisaa siyaasad khalkhal dhalisa siyaasad khalkhal dhalisana waxay dumisaa dal ee dal ma dhisto labo haddii la isku dayo in dalka laga qabto doorasho aan la wada ogolayn waxaa ka dhalanaysaa amni darro sida maanta aad u jeedaan waxa ka taagan gedo xaaladda ka taagan beledweyne iyo caawa wixii ka dhacay magaalada muqdisho degmadeeda kaaraan maxaa ka halaabaya dawlad goboleedyadii qodobka saddexaad maxaa ka halaabaya dawlad goboleedyadii walaalahay ka hadlaayeen iga horreeyey waxay dhaawacaysaa xasiloonida dawlad goboleedyada nugul
oo mar dhow la soo dhisay oo weli hana qaada haddii lagu khasbo doorasho aan dadka ka soo jeeda isla ogolayn waxay keenaysaa in dowlad goboleedyadaasi aanay ka harin doorashada lafteeda taasoo keenaysa dibadhac weyn gobollo soomaaliyeedna u keenaysa maxaa halaabaya haddii dalka doorashadiisa lagu heshiin waayo qodobka afraad waxaa halaabayaa in ganacsiga dalka uu hoos u dhaco haddii ganacsiga dalka hoos u dhacona waxay saameynaysaa qof walboo soomaaliyeed oo sida murashaxiintu ay sheegeen hantida dadka soomaaliyeed iyagu ay usoo dhinteen oo ay dhibaatadan ku sameeyeen ay tahay waajib inaan anagu u badbaadino qodobka shanaad haddii uu ganacsigu hoos u dhaco waxay keenaysaa in dakhliga dawladdu hoos u dhacdo in canshuurta la bixinayo ay yaraato oo qasnada dawladda dhaqaalihii ku dhacayay ay hoos u dhacaan taasoo keenaysa qodobkeeda shanaad oo ah in shaqaalihii mushaar la siin waayo ciidankiina mushaar la siin waayo dawladdu adeeg ay bixin weyso taasna waa fahmi kartaan dhibaatada ka dhalanaysa soo maaha arrinka lixaad waxay tahay dalkani waxa uu ku nool yahay taageero dhaqaale oo uu ka helo beesha caalamka taageeradaas dhaqaale oo beesha caalamka dalkani uu ka helo doorashada caawa lagu muransan yahay awgeed ayaa dalal ka mida beesha caalamku ay u joojiyeen lacagtii dawladda lagu kaalmeyn jiray in la soo furana waxaa laga yaabaa inay sanado qaadato number 7 si dalka looga xoreeyo cadowga hortaagan dawladda Soomaaliyeed ciidankeedu waxay taageero uga baahan yihiin dalal ka mid ah beesha caalamka oo qalab iyo dhaqaalaba ku bixiya doorashada lagu muransan yahay awgeed ayaa la joojiyay qaar ka mid ah caawinaadii ciidanka la siin jiray waa in la idin sheegaa waxa dalkiina ka socda dalalka taageera Soomaaliya oo dhaqaalaha ku bixiya waxay dhaqaalahooda ka soo qaadaan canshuur ay bixiyeen dad iyaga soo doortay oo ay matalaan lagama yaabo inay marka dhaqaale intay dunidu soo qaado ka soo qaado dadkoodii canshuur ay bixiyaan ay siiyaan dawlad ku dhalatay doorasho aan la isla ogolayn soo islama fahamsanin qodobka tobnaad maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay arkayeen hami iyo diino iyo kuwa ajnabiya intuba waxay haminayeen inay dalka maalgashi ku sameeyaan dalna in maalgashi lagu sameeyo waxaa laga eegaa deganaanta siyaasadeed gaar ahaan xilliga kala guurka iyo marka doorasho dhacayso fursad u imaan lahayd dadka Soomaaliyeed ayaa sidaas daraadeed waxaa ka hortaagan caqabadan hadda ah oo ay tahay khasab inay dadka Soomaaliyeed fahmaan waxa ay ka hadlaynayso koob iyo toban dunidu siday u aragtaa Soomaaliya 30 sano dalkan wax badan baa ka soo halaabay waa la soo dadaalay wax badan baa la soo qabtay cid soo qabatayba waxyaabaha ugu waaweyn oo taariikhdeena ku jira waxay tahay si kasta oo Soomaaliya dhibaato uga jirto afartii sanaba waxa ka dhacda doorasho qori isu dhiib ah xukunka la isku wareejiyo taasoo naga hormarisay dalal badan oo Afrikaan ah tiina hal ay u muuqataa haddii aan wax laga qaban inay taariikhdeena dhibaato u keenayso 12 dawladnimada waxay ku tiirsan tahay tiir la yiraahdo rajada shacabka Soomaaliyeed tiirkaas la yiraahdo rajada shacabka waxa laga yaabaa in dhibaato la soo maro oo la dul qaato laakiin hal meel ayaan la isugu dul qaadan
waa malka doorashada la soo gaaro haddii marka arrinkaas isaga ah aan laga fiirsan waxay keenaysaa in rajadii shacabku ay baaba'do baaba'aadda rajada shacabkana waxay ka turjumaysaa dawlad naga halowda oo dhalisa qaranjab iyo qabjab si marka aan u xaqiijinno mustaqbalka iyo diilada shacabka Soomaaliyeed fursad aan u siino dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iideysano kartidooda iyo dadaalkooda dalkan iyagu ay leeyihiin ay ugu adeegaan mustaqbalkoodu waxa uu ku xiran yahay inay fahmi karaan inay iyaga laftoodu rajo leeyihiin la dooran karo waxna ay dooran karaan sidaas daraaddeed ayaa qof waliba oo naga mid ah halkan jooga ay mas'uul ka tahay inay ka shaqeyso dalkan in si nabad ah loogu soo dabaalo doorasho inay ka dhacdo xalaal ah la isla ogol yahay waxaan rabaa markii inaan idhaahdo xukunku waa qoro isu dhiib qofba mar ayuu joogaa laakiin qof walba oo Soomaaliyeed waxaa la rabaa dalka inuu u turo cidda ugu horeysa oo la rabo inay dalka u turto waa cidda markaas xukunka joogta turitaankaas marka waxaa la rabaa haddii loo turi waayo inaan xasuusino in loo turo waxaan rabaa marka inaan iraahdo doodii halkan aan caawa ka soo jeedinay waxay ka turjumaysaa waxa dalkan ka halaabi kara inta ay leeyihiin qof walba Soomaaliyeed oo doodan dhageysata waxaa la rabaa inay ku qanci karto ama nagala doodi karto waxaana diyaar u nahay in laga doodo haddaad maqasheen nin abwaan hoo yiri duni aad ka tahay boqor ha ka noqon qof dayra ah dahab baad ku dhalatay sidii maar ha doorsoomin karaamaad ku dadantay sidii dunyo howlumin dhegtu waa daaweyntee magacaada diib mari taariikh baa dambaysee ha ka tegin wax laga dido wiil yar oo Soomaaliyeed ayaa Soomaaliyoo dhan fariintaas u diray oo la yiraahdo laabsaala qof walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inuu qaybtaas ka hado waa maasantii